Assalaamu calaykum. Waxa aad dhammaan ka warhayseen oo warbaahinta Soomaalida qabsaday maalmihii ugu dambeeyay dilkii bahalnimada ahaa ee lagu qarxiyay Sheekh Cabdinaasir Xaaji Axmed. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariistee. Isaga oo magaalada Kismaayo u jooga dacwad iyo in uu dadkiisa islaaxiyo. Sheekha iyo dadaalkiisii, damiirkiisii, dadnimadiisii iyo camalka foosha xun ee bahalnimada ah ee Al-Shabaab waa laga hadlay. waxa aanse sheekha ku soo koobayaa in uu ahaa sheekhu waxa uu ahaa warshad aqooneed oo aad iyo aad ba ay u tiro iyo tayo badan yihiin ardayda ka aflaxday dadaaladiisii uu hadh iyo habeenba waday qaarad aanay joogin ardaydiisina ma jirto. 2 sheekhu Ilaahay ha u naxariistee waxa uu ahaa tusaale dadaal iyo tabac kartiyeed marna ma daali jirin ee isaga ayaa dhalinyarada ku dhaliili jiray gaabiska. markii la qarxiyay waxa uu ahaa 65 jir isla da'da isaga oo ahna dacwad baa uu u socday oo uu uga yimi deegaankiisii, ehelkiisii, asxaabtiisii, ardaydiisii iyo aaggiisiba. 3 sheekhu waxa uu ahaa nin garta iyo geedka laga yaqaano oo marka ay xaajadu murugto ee meel daran ka dhacdo isagu maanka ku soo dabaala islaaxa walaalaynta kala horjoogida kuwa islaynaya iyo dhayista boogaha waxa uu ku ahaa kan isagu ugu horeeya uguna daacadsan. fariimo uu u diray qaar ka mid ah haldoorka bulshada intaan la qarxin ayaa waxa ay ahaayeen in uu rabo in uu magaalada Laascaanood ka furo xarun lagu soo saarayo dad culimo ah si degdeg ahna uu u rabo in uu bilaabo. culimadii iyo waxgaradkina waxa ay go'aansadeen in ay riyadaas dhabeeyaan oo aanu hankii sheekhu isna qabriga la gelin. jimcihii hore ayaanay magaalada Laascaanood ka dhagax dhigeen xarunta iyaga oo sheekha ugu magac daray una bixiyay markazu Sheekh Cabdinaasir li'icdaadi al-ulama. xarunta Sheekh Cabdinaasir ee carbinta iyo unkida culimada. innagana waxa inala gudboon in aynu ka faa'iideysano fursadaas oo aynu wixii karaankeenna ah kaga qayb qaadanno. bal sawiro meel culimo lagu soo saarayo oo aad wax ku darsatay haba yaraadee ajar intee la eeg ayaa aad ka helaysaa. tusaale haddii ay sanadkii kastaba ka soo baxaan 20 sheekh dirir oo meeran ah 20kaasina mid waliba uu waxbaro dad tiradoodu tahay 500 oo qof waa 10,000 oo qof oo ay soo saareen hal dufcad oo ka soo baxday xaruntaas carbineed. haddana 10,000 ee qof ee ay soo saareen halka dufcad bal aynu ku dhufanno 20 dufcadood waa 200,000 oo qof. haddaba in aad 200,000 oo qof mid kastaba ajar ku lahaataa ma wax sahal lagu helaaba. $1 haddaad ku darsato wax kale iska daahi waxa aad arday kasta wax kasta oo uu qabto ka helaysaa ajar aan xaddi lahayn oo Ilaahay u tirsan. waa innaga iyo go'aankeenna wax bixineed halka uu ina dhigo. waa Sakariya Haaruni oo idinkaga tegaya inta aynu muuqaal kale oo xiiso badan ku kulmayno. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.